ويدونكو كورهم waxa ka daran halka imka duurjoogta kale noo joogta dabis ayagana raashikoodii oo halka bil walba loo geynayo iyo shaqaalihii ka shaqeynay marka taasina waxay noqotay challenge weyn oo maartay caqabad aad u weyn oo iyada qudheedu aanu la dagaalankeedu ku jiro laakiin dadka wacyigoodi ayagana hooseeyaan 400 caasha bariyood oo ku soo qabanay dad ajnabi iyo Soomaali bale oo iyagana aanu sii deynay oo aanu ku sii deynay dib ugu dhalay deegaankii laga keenay ilaa imkaan ay socoto ugaarsigeed ilaa haddana uu socdaa ugaarsigeed markaad eegto duurjoogta ka ganacsigeed waa waxyaabaha wasaaradda caqabada koobaad ku umada reer Soomaaliland qofkaad ku soo xidho kooranayo ma deeraad ku soo xidhay madiin baad ku soo xidhay ma harimacad baad ku soo xidhay qofkan waa nin miskiin waa nin aan waxba ogeyn waa nin reer miya intaas aad ku safar ku yimi oo ku soo safray ama waa la soo waa marka halkaana caqabad ayaa ka jirta ka wasaaradahan maanta ilaahay mahadi wasaarad waxaanu hadaad kaga soo qabato dhulka meesha lagu yiraahdo gobolka lagu yiraahdo sanaan xafiiskeedii oo isu dheelitiran ilaa baaburtoodii ay haystaan marka aad timaado aduu la ku rooyahay sanaag markaad isku darto iyada iyo degmooyinkooda aad iyo aad ayay u wanaagsan yihiin oo u haystaan wixii aanu imka isleenahay wixii tamartayada ahaa waan loogu talagalay way haystaan ma xafiisaado ama ha ahaadaan baabuur ama ha ahaadaan kira laga bixinayo ama ha ahaadaan lacagta ku shaqeynayeen ama ha ahaato lacagtii shaqaalu qaadanayeenba way u dhameystiran tahay waxa u dhameystiran tahay soo ayada naftarkeedu waa lamid xafiiskeedii baabuurkoodii iyo mushaharkoodii iyo shaqaalahoodii lacagta ku shaqeynayeen haddaad tog dheer timaado waa lamid haddaad timaado sheekh waa lamid haddaad timaado meesha lagu yiraahdo berbera saaxib waa lamid hargeysa haddaad marood jeex timaado waa lamid awdal waa lamid meel kastaba waxay ku shaqeynayeen maanta ee aad isleedahay waa basics way ku shaqeynayeen way wada haystaan xafiisyadu way wada dhisayiin ilaa gabiilay aboorame sayla xafiisyadoodii oo qalabaysan way wada jiraan shaqaalahoodii waa haystaan ya allah sayla baa imaka baabuur iyagana aanu ugu talagalaynaa labada ku soo xigaana waa hawd iyo saraar oo weynana way haystaan baabuurkoodii laakiin xafiiskoodii ayaa iyagana markaad eegto overall ka wasaaradahan waa wasaarad dhisan waa wasaarad kor soo kacday intaas oo sanadood waa wasaarad marka laga soo bilaabo 97 ilaa imka halkay taagan tahay wasaaradaha ugu sareeya Soomaaliland maanta kamid ah kaliya waxa weeyaan in halka laga sii qaado laga sii xoojiyo dad kale wacyigoodu uu kor soo qaadmo ay ogaadaan in waxa laga hadlayo wax rasmi ah ay tahay oo aanay beenahayn abaaray soo maray in la isbedeshay waxa la iibsanaya waa nuga arkayna xayawaankeena yani inay ogaadaan waaqica geedka la gooynaya aafadu leeyahay inay ogaadaan aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa insha Allah bismillaahi alkariim wax la soo koobi kara maaha waxaan qabanay laakiin qofka maanta loo yimaadee soo eega beeraha iyaga soo eegay dhulkan deeyo waxaan ku hayno iyo hawlaha waxaan filayaa in aynu runtii aad noo bogi lahaydeen kaliya waxa weeyaan in ay dadku isticmaalaan inay iska tagaan wuxuu isticmaalaan gaasta iyo wixii la mid ah foornooyinka maanta iyaguna aafada dadka ku hayo waa foornooyinka dhuxusha foornooyinka imanka xaabada wax ku shida waxaan ugu taagoynay waxa shidataan oo ku shidaan waa garawaaga meel walba jooga meel walba yaala ka baxaya meel kasta ka baxaya foornooyinkiina uu ku shida oo roodhida inoo soo saara waxaad aragtay gooloola ee geed kasta bale waa ka maanta ay hor yaalaan marka aad martaan iyo baabuurta u saarayeen boo aragtaan aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa su'aasha hore dhagaxda haddii wadankeenu dhagax ay ku jirto maxaynu la soo bixi weynay taasoo inoo noqon lahayd iyadu tamar ay isticmaalaan oo de wadanka gudaheediina laga helay horta runtii waa run dhagax way ku jirtaa dalkeena
لكن waxay u baahan tahay baaritaan sida petrolka oo kale sida petrolka loo baarayo iyo macdanta in loo baaray u baahan tahay taasina waxay u baahan tahay in ama dadkeena dad kamida mar hadaan imika waqtigan dawladdu aan maal gelin karaynin ama dad dibadda ka yimaado oo maal gashada ay baaraan sida imika shirkadaha ay u imanayaan ay u eegayaan khayraadka ka mid tahay wuxuu dhagax ka waxay u baahan tahay tacab fara badan iyo xoolo fara badan oo lagu soo saaray u baahan tahay waayo iyadu dhulka hoosteedana way ku jirtaa carbon monoxide bay leedahay waa in laga saaraa carbon monoxide haddii aan carbonka laga saarin lama shidan karayo way carbonka dhirta ka soo baxa ama qorin qalalan ay shidayna iyo carbonka ay dhuxushaasi leedahay gudaha ku jirta dhulka hoosteeda way kala duwan yihiin waana kala xoog badan yihiin marka mid walba marka la shido waxay leedahay sun gooni oo gaar ah waa si kala khafiifsan marka waxay u baahan tahay taasi waqti bay u baahan tahay iyo in juhdi badan la geliyo si loo soo saaro tan kale ee dhulka la iska xidhanayo ee maanta aad arkaysaan meel walba aad martabada iska xidhan yihiin aan malaynayaa inaad aad uga warhaysaan si weyn baa uga warhaysaan weliba dee seerayaasha imika taan khaati ku kala joogna ma aha halkii miyiga caadiga ahay ee reer miyigu daaqayeen waa seeraha dhexdiisii taan isku haysanaa maanta aan isku haysanaa marka lagu yiraahdo tabdhe waa seerihii gudaheedii ta aw qofleeya anaa deganaa ama awowgay baa deganaa da way deganeed awowgaa baa deganaa ayaydaa baa deganeed laakiin dee transit bay ahayd way daaqaysay dee may lahayn iyadu gurigeedii muu ahayn waa guri ay daaqaysay ka guuraysay meel kale u guurayeen waa ummadda meel loogu talagalay in cid kastaaba daaqdo oo maalinta baahidu timaado loo xidho oo la karo loo xidho oo ay la daaqo laakiin haddaad seerihii tiraahdo anigaa leh seerihii ummadda tira anaa leh dee ma shaqaynaysa taasina waxaad arkaysaa ugu badan marka meel lagu dhago odayaashii baa daba socda bal idinku guurtiyo idinkaa noo guurtidii ahayd bal odayaasha la hadla waxaad ku tirahdaan qofkan isagu sharci darrada wax ku doonaya horta ha soo raacin bal idinku imaamadan horta ha ka hadlo ha soo raacin runtii waa la daba socda imikana way ka tagtay oo reer hebel haddaanu nahay ayay taagantahay seeraha annaga ahay reer hebel kale seeraha annaga marka ilaa aynu inagu waxaan wax ka qabanno dawladda ahaana de xooga saarna oo umaba joojino waliba anigu uma sii joojiyaba laakiin waxa weeye in la fahmo waxay ummadda ka dhaxayaan ummaddu leeyahay in aan loogu garabay oo qofka maxkamad iyo loogu garqaadin debad midnaba waxa ummaddu leedahay marka taasina waa caqabad in aad jirtaa ama ina haysata taa ku xigtaa su'aasha ku xigtaa waa xoolaha Soomaaliya xoolaha magaalooyinka dhex jooga ma garan karaayo ilaa imkada kama jawaabi karaayo dawladii kama jawaabi karaayo tan maxay u dhex jooga xooliba dadkii baa soo galay xooluhu way nala soo galeen u baahan islee magaaladii markay soo galay ay xoolina nala daba yimaadeen ay nasoo ilaa meel ay istaagaan ma haystaan marka xoolaha maanta magaalooyinka ku jira yaan israacina berbera maanta oo kale saaxil oo kale berberi way ka saartay degmadaas runtii waxa dhirtu 10 kun oo geedaan siinay kaalay soo eegtaba yiraahdo dhirtiinu soo waxday iyo quruxda marka waxay u baahanay taana dawladaha hoose in iyaga ku dhowdo ay xoog saaraan oo meel kastaba dawladaha hoose ay ka saaraan xoolihii oo xuduud loo sameeyo la neefka xaga ma soo dhaaf karo xaga dibadda ku haya laakiin hadaynu nidhaahno hilibkiisi baynu cunayna halkana bariis isku dhaxkarisa galabtii la siinayo xaafadda ka soo aaday oo hilibku ku jiro uu neefku cunaayo dee madiiniyan ma sharciyan marta ma saxba soo aqal يعني واحد أركي سامع واحد لورد يا واحد أديم حنيسي وهيلبكي واحد للصينية وقاتكم حنية والحوحدي وشاهي وحاسين أركينا هذا السوق اللي جيني ها مركاي مش قينيسو بل شرعيا يدينيا إنه بعض حوالها المجالين كشرة إسكو دحكرسك كل حنية حرام يمسوا حرام تاو واحد كجب حياة هالكا ciidanka forestry maanta ugu badan yihiin maanta meel ay ka badan yihiin inta ugu yareeyay 600 oo qof weey se kuma filla shaqo kuma laha waayo dhulka la ilaaliyo dhul weyn oo ballaaran imika san 2019 iyo 2020
sanadkan waxa gacanta la saaray 350 shaqaalaha yagiya oo mid walba dhakhtar nabarka lagu dhuftay uu la galay 350 weey marka deegto 350 qof oo gacan la saaray soo arki ma sidii marka dagaal naga dhaxayo annaga iyo dadkii waxa la isku dirayana waa sharcigi waxa sharcigu ma ogola iyo waxaan gacantaydan ku fushanay waxa ku jiray oo xusud mudan oo aan ugu mahad celinayaa dadka la dilay waxa ku jiray nin ahaa garsoore oo gobolka Daadmareera oo dadweyne maxkamadeeda fadhiyay garsoorihii dhammaa oo tiimka iyaga raacay oo wacyigelin loo baxay oo dhul xasuuqay ay u baxeen markii dambe tuuladii la yimi na ay dadkii la hadlayeen kuwii laga joojiyay dhuxusha uu soo gaaday oo gudin madaxa ka saaray oo adigu nabar weyn halisa gaarsiyo in badan dhakhtarkan ku jiray maantana caafimaad qaba runtii bahda iyaga garsoorka ku dhowda way ka soo gaareen nabaro waxaad arkaysaa dagaalka lagu jiro seerayaasha ay maxkamaduhu ay ka garnaqayaan way jiraano waa dhulkoo dhan bay ka garnaqaan oo la isku wada haystaa seerahaana way ku jiraan waxaa maanta aan idiin sheegayaa halkan meel saaxila ayaa waxa isku qabsaday oo aan lahayn dawladdu lahayd Soomaaliya laba nin baa isku qabsaday waa ilmaadeer labadayna ilmaadeer weey labadii way ku kala bixi waayeen 4 sanadood way beerteen dhulkii way hantiyeen biyo durduray kala soo baxeen way hantiyeen waxbay ka beereen way ku heshiin waayeen labadoodii beerade aan lahayn iyagu qaateen way ku heshiin waayeen labadii mid ahaan baa ila bakaaleen waan istileynaa intaanu aakhirays la tagi lahayn nagala wareega maca saytuunka iyo waxaan beeray balkaale la wareegay maalin weytaan ku baxnay saaxil lagaga soo baxay halkan kaga baxnay kala wareegnay dhulkii oo nidhi labadiiba malihidina dawladda Soomaaliland daaro madaal marka xataa haday qaataan kuwii baa ku heshiinayeenba qaatay tusaale inta mar ma aha laba ma aha saddex waxa jira iyagana waxa tiraahdan dayartu hadii aad bixishii mamnuucdeen maxay shidanayaan waxa jira gurgirayaal bixisha beekhamiya oo ka jaban gaastan oo girgiruhu aan $7 hataa hayn laakiin muddo dhan ku haynaya oo bixishana boqolkiiba inta ugu yartay konton ku beekhaminaya waxa jira girgirayaashaas oo iyaguna yaala oo dadka dayartu haday xataa hagbad ku galaan ay ku gali karayaan laakiin waxa la isweydiinayaa halkaynu ka soo bilownay maanta waa beginning aad u wanaagsan laakiin inaynu taa ku sii socono baynu u baahannahay in xooga la saaray dhirta la ilaaliyo oo la beero anagu dhir waana la ka helayaa hadh baana la ka helayaa khudradda xataa waanu beeraa waa siinaa dadka oo wax yar baa laga qaadaa haddaad maanta timaadaan halkaasay beeraha ugu taagan yihiin laakiin dee maxay tahay magaalooyinka in xoolaha horta laga saaray u baahan yihiin dabadiina in loo qaado oo dadka maaragtay dee madaxdu u qaadaan degmooyinka madaxdooda iyo gobolladuba inay u qaadaan oo waqtiyada biyaha ay runtii lagu aad loogu beero dadka lagu wacyigalo meelo ugu wanaagsan in kuwan islaamka gobollada qaarkood way marinayaan marka libaaxada la qaadayna ee aan xagga geynayna waxaan isu miisaanay inay damage geysato oo haddii gacanta dadka ay ka baxdo ay damage geysato waayo haddii ay maanta markay dadkii hayay xagtin ku bilowday ayaa muslimiinta dambe ama iyadoo careysan ama iyadoo maaragtay gaajoonaysa ayay ku dhagiyo gacan ka goosan qof marka intaan u helayno facility hagaagsan iyo tababarkeedii iyo sidii loo ilaalin lahaa oo xoog loo saari lahaa waxaan door bidnay intay dad dili lahayd inaan geyno bonfiri waxa xusid badan hal harimacad oo isagu waad ahaa ama markan ku leeyahay dilaa ahaa oo aanay ka bixin weli dilaanimadii ka bixin ayaa ber dhexdana ka dhacay dayrka markuu ka dhacayna warwar badan baana galay waayo wuxuu arkay xooliyo iska soconaya riyihii wuxuu arkay carruurtii dibadii ku ciyaaraysa annagoo warwarsan oo saan u qabanno ugu yeedhnay dabdamiska oonu doonayno inay naga caawiyaan inay nala qabtaan oonu ku soo celinay dayrkii ayuu isagu dayrkiiba ka soo dhacay oo dib u soo noqday markaanu xejin kar weynaan u taag weynay aanu aragnay inaanu kaasi u geysanayo dhibaato weyn oo maanta taa aanu haynaan ka weyn oo hadhowta haddii doo cid uu cuno dee loogu raacayo kaa qudhiisa
ولا خارجية وحنا نقولي أنتي دلي لها مر هدان والدمادي كبحنا يسقوا يرلكيني والدمادي كبحنا يسقوا وين لكياني وحسك علنا يو أجريسيف هاي وده مرة حاجة عرّي مرة حاجة سول كان وننا عسكرية كبوستي أنت وين بو يدين جيسنا يسول كنا إلهي نكيو سهلي وده كجو لكن إلهي سهلي وانو كاسا مركب نقول كلفتي كم قديسة ولي فتح ما نقادن لكن ما نقادن دونا واي ونوق نهاي مرة دي حيوان كاسو أجريسيف هاي ما أنا تكون سوء بلين كراينين سيستم كا أما إنه كبح أجريسيف لماذا أما وكبحوا دوال لماذا كنتي دبي أنا كنا نقطع لكن بس أقول لي سوى إنه يجي نهدي الله يراه لكن تذكر بيسكو خالدايو كي سلا سواق هذا حرمات دواك الشباب كان كلا قرنينا سواق هذا شباب يرون على لقسوي بناي لقسوي أما اللي بح عادي بقى يسوي بسنة يعني بل اللي بح بقى هاي مدبوب دنتي كي كنا ضاد بدنو كذا عادي حتى تذكر إلا ندبتها إن اللي بح ما نجا قاعدين وسعرت اللي بح يجي بقاعدتي وإلى أبوان دنا اشتكينا أنا محكمة دنا دكوا جينا إن لا قاعد وضياشي آخر كنا نريد كم محكمة دقل الدنيا شاركة دنا كتير runtii waqti bay nagu qaadatay marka waxaan u maleeyahay su'aalaha ay weydiinaysa inay inta ay ku soo